بسم الله الرحمن الرحيم qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah ciidamada Iran ayaa lagu wareejiyay boqolaal diyaaradaha droniska ee ismiidaamiya xilli laga cabsi qabo bariga dhexe dagaal inuu ka qarxo waxa ay soo tariyay wararka sheegaya in 24 saac soo socda ay yihiin saacadaha ugu adag ama ugu xasaasisan ee la filan karo Mareykanku inuu duulaan qaado xubno ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa sirdoonka Israa'iil iyo Mareykanka ayaa wadahadal xasaasi waxay ku leeyihiin Washington Iranna waxay wacd ku martay inay si adag uga jawaabi doonto weerar kasta oo lagu soo qaado iyadoo dhiiladan colaadid ay taagan tahay midowga Yurub ayaa qaaday tilaabooyin xaaladda uga sii daraya ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah ayay waxay u aqoonsadeen waxa loogu yeero argagixisada iyadoo sidoo kalena cunaqabateyn lagu soo rogay xubno ka tirsan mas'uuliyiinta dawladda Iran oo ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha Hamas waxay ku dhawaaqday in aysan jirin wax qorshe ah oo hubka ay ku dhigayso ciidamada bariga dhexdeeda dib ugu laabanana Ruushka ayaa lagu soo waramayaa in uu shaaciyay in shaqaalihiisa oo kala baxayo mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn nuclear-ka ee waddankaasi Iran dhamaan wararkan iyo waliba qodobo kale iyo falaqayntii iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa Ahmed Mahmoud Cabdi ayaa wararkan isku soo duway Maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn ciidamada qalabka sida ee waddanka Iran ayaa sheegay in boqolaal diyaaradaha droniska loo yaqaan ee cusub in ay lagu soo wareejiyay sida lagu xusay wakaaladda wararka ee Tasniim iyadoo xiisadda ay kor u sii kacayso ama cirka isku shareerayso laga yaabo inuu dagaal dhex maro Iran iyo dowladda Mareykanka warbixintan ayaa imaanaysa iyada oo digniinta ka imaanaysa madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ay soo tarayso oo uu ku hanjabayo in tallaabo military uu qaadayo haddii Iran ay diido in ay heshiis ka gasho barnaamijkeeda nuclear-ka arrimahan ayaa waxaa ka hadlay abanduulaha ciidamada qalabka sida ee waddanka Iran Amir Hatami oo sheegay in militariga Iran ay awoodooda xoojiyeen ayna filayaan khataraha isi soo taraya dhanka Mareykanka ka soo wajahan iyadoo lala jaan qaadayo khataraha Mareykanka ka soo wajahan ayaa ciidamada Iran ayuu waxa uu yiri waxa ay wadaan oo dardar gelinayaan in ay dardar geliyaan faa'iidooyinkooda istiraatiijiyadeed ee dagaal degdega ay ku gali lahaayeen isla markaana ay jawaab burbur weyn geysata ay ku qaadi doonaan cid kasta oo dhulkooda ku soo xadgudubta sida Xaatami oo hadalku dhigay saraakiisha Iran ayaa ku celceliyay digniin haddii Mareykanka uu weerar ku soo qaado waddanka Iran in ay dhalin doonto falcelin ay ka mid tahay dagaal lagu qaado ama weerar lagu qaado waddanka Iran iyo danaha Mareykanka ee dhammaan gobolka bariga dhexe diyaaradahan ugu dambeeya ee droniska ee boqolaalka ah ayaa loo arkaa inay qayb ka yihiin dadaalada dowladda Iran ay ku dardargelinayso cabsi gelinta iyo awoodeeda muujintiisa iyada oo gobolka uu ka socdo is-abaabul xoog leh Iran ay saaran tahay cadaadis caalami ah ururka midowga Yurub madaxa u qaabilsan arrimaha siyaasadda Kaja Kallas ayaa ku dhawaaqay in wasiirada arrimaha dibadda ee ururka midowga Yurub ay isku afgarteen in ciidamada ilaalada kacaanka ee waddanka Iran lagu daro liiska argagixisada taasoo dardar gelinaysa colaadda iyo mowqifka ay ururka midowga Yurub ka qaateen waddanka Iran bayaankan ayaa lagu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee Iran wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub ay mar horeba qaateen tallaabadan ay ku ansixinayaan liiska mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda iyo hay'adda ugu awoodda badan ee jamhuuriyadda islaamiga ee waddanka Iran ee ciidamada ilaalada kacaanka go'aankan ayaa waxa uu daba socdaa walwal laga muujinayo oo ururka midowga Yurub uu ka muujinayo Iran in laga yaabo in ay mudaaharaadyadii ka dhacay ay si xoog leh uga jawaabtay laguna eedeynayo inay gabad fallo xagga xuquuqda aadanaha sidii hadalku u dhigeen inay Iran geysatay in lagu daro liiska argagixisada ayaa waxa ay dhalinaysaa
doodo badan oo xagga qaanuunka ah iyo saameyn xagga dhaqaalaha oo ay ka mid tahay in lacagaha la fariisiyo xanibaadna lagu soo rogo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda iyo ciidamada ilaalada kacaanka tan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo xiisada gobolka iyo aad cirka isugu shareerayso islamarkaasna cadaadis xoog leh oo ku socda waddanka Iiraan oo lagu haysto siyaasaddiisa arrimaha gudaha iyo dhaqdhaqaaqa ciidamadiisa amniga. Ururka Midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay in ay ku soo rogeen cunaqabatayn mas-uuliyiin sarsare oo waddanka Iiraan ka mid ah iyadoo xiisadda ay sidoo kale hawada sare isku shareerayso iyo iyada oo hinjibaadda Maraykanku ee talaba militari ay qaadayaan is soo tarayso. Bayaan ka soo baxay ururka Midowga Yurub ayaa lagu sheegay cunaqabataynta waxa ay ka dhan tahay wasiirka arrimaha gudaha Iskandar Momeni iyo xeeralyaha guud ee waddanka Iiraan Maxamed Movahedi iyo xaakim Iimaan Afshari. Ururka Midowga Yurub ayaa ku eedeynaya saddexdaasi mas-uul sarsare ee xukuumadda Iiraan ka tirsan inay si toos ah lagu lahaayeen caburinta dadkii sida nabadda waa hadalka sida loo dhigay u mudaaraaday iyadoo qaaday tillaabooyin lagu soo xirxirayo dad fara badan laguna maxkamadaynayo dadka siyaasadda uga soo horjeeda xukuumadda xadgudubyada la geystana waxaa ka mid ah dadka ilaaliya xuquuqda aadanahana laftirkooda la xirxiray. Tillaabadan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo maamulka madaxweyne Donald Trump uu tilmaamayo in khiyaarka militari uu weli miiska u saaran yahay. Xukuumadda Iiraan dhanka kale ayaa digniin ku bixisay in Iiraan ay si dhaqso ah falcelin jawaab militariya ku samaynayso haddii weerar dhulkeeda lagu soo qaado. Madaxa xukuumadda Ruushka u qaabilsan iskaashiga xagga nukliyeerka Alexei Lekhashev ayaa sheegay in dowladda Ruushka ay isu diyaarinayso in ay kala baxdo shaqaalaheeda ku sugan xarunta nukliyeerka lagu tayageliyo ee waddanka Iiraan ee Basheher la yiraahdo haddii loo baahdo. Waxaan farta ku haynaa buu leeyahay xaaladaha socda iyo iskaashiga aan la leenahay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda difaaca ee waddanka Iiraan. Sidoo kale waxaan diyaar u nahay in aan qaadno tillaabooyin aan khabiiradeena kula baxayno haddii ay muhiim noqoto. Lekhashev ayaa waxaa soo xigtay wakaaladda wararka ee waddanka Ruushka. Weerarkii ugu dambeeyey ee Maraykanka uu ku qaaday barnaamijka nukliyeerka ama kaabayaasha nukliyeerka Iiraan bishii Juun 2025 ayaanan qayb ka ahayn meelaha la weeraray Basheher, halkaas oo madaxweyne Putin uu sheegay in boqolaal khabiiro Ruusha ay ka shaqaynayaan. Lekhashev ayaa digniin ku bixiyey tillaabo kasta oo lagu qaado weerarkaasi inay dhalin doonto masiibo u dhiganta midii ka dhacday xaruntii nukliyeerka ee Chernobyl 1986 ee masiibada weyn waddanka Ukraine ka dhalisay. Ururka Xamaas ayaanan marnaba ogolaanin inay hubka iska dhigaan sida uu sheegay mas-uul sare oo ka tirsan ururka Xamaas Musa Abu Marzuq, iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Maraykanka ay ku adkaysanayaan in ururka Xamaas ay waajib tahay inay hubkooda iska dhiibaan mustaqbalka dhow. Abu Marzuq ayaa sheegaya cid wadaxaajood nagala yeelatay weli ma jirto hubkeena, cid aan kala hadalnay oo si toos nagala hadashana ma jirto, cid annagu marnaba lama hadlin Maraykanka dhinaciisa iyo dhexdhexaadiyaasha arrimaha la xiriira hubka. Sidaa daraadeed ma laga hadli karo hubka iyadoo aan taasi macnaheeda ahayn anagoon ogeyn hadafka waxaan laga leeyahay. Waxaan kaloo sheegayaa ururka Xamaas in ay ogolaatay hubkeeda inay dhiibto in aynan ahayn wax marnaba dhacay, marna ma la isla soo qaadin wax la xiriira in ururka Xamaas hubkooda dhiibaan iyo khidad walba oo la soo dejiyo oo lagu burburinayo hubkeena iyo hubkeena in ay meesha ka baxdo marnaba la isma soo qaadin. Haddii Israa'iil iyo dowladda Maraykanka iyo dalalka reer galbeedka ay ku guul daraysteen inay ururka Xamaas xoog hubka uga dhigaan, waa sidoo hadalka u dhigaya 2 sano ay dagaalka lagu qaadayay, sidee ayay hubka uga dhigi karaan ayagoo hadda isticmaalaya wadaxaajood ayuu isweydiiyey.
tahay maxamed waa mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin mar kale ayaan soo dhoweynaynaa daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warah soo kordha intaynu hawada ku jirna ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina qibla homes waxay kugu diyaarisay nairobi south sea iyo mombasa niyali apartments iyo villas ka kooban 5 4 iyo 2 bedrooms oo dublekisa iyo sidoo kale 4 3 2 iyo 1 bedrooms oo caadi ah guryaha qaar waxa ay leeyihiin qolka shaqaalaha dhismayaasha qibla homes waa turkish style casri ah waxaana loo dhammaystiray wax kasta oo guri casri u baahan yahay waxaana shirkaddu ay kugu baaqaysaa qiimo dhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 maalmood faahfaahin dheeraada kala xiriir nambarka shaashada saaran Somali Meat Company waa shirkadda ugu weyn hilibka Soomaaliya waxaana ay ku hawlan tahay inay gaarsiiso hilib tayadiisa caafimaad la hubiyay soona maray baaritaano caafimaad oo guuleystay waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn bariga Afrika iyadoo leh qaybaha warshada hilibka geela warshada hilibka looda warshada hilibka ariga iyo warshada lafa bixinta hilibka waxaana ka hawlgala shaqaale aqoontooda iyo xirfadooda aad loo diyaariyay soona maray baaritaano caafimaad Somali Meat Company waxay sidoo kale hilibka u dhoofisaa dalalka dibadda sida dalalka Afrika Khaliijka dhawaanna waxa ay geyn doontaa dalalka Yurub waxa ayna haysataa shahaado hilib oo caalami ah sida Halal Certificate iyo ISO Certificate shirkaddu waxay Muqdisho ku leedahay ilaa iyo 6 goobood si dadka loo gaarsiiyo adeeg hilib oo fresh ah haddaba booqo xarumaha kala duwan ee Somali Meat Company ama la xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaareynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkan wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shaashada kaaga muuqda soo dhawaada markale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa maxamed aan ku bilowno arrimahan bariga dhexe aynu ku bilowno abaabul baa socda wararka qaarkood waxay leeyihiin 48 saac soo socda ama 24 saac soo socda suurtagal waxa Mareykanku inuu qaado weerar Iiraan waa inuu aragna diyaar garow badan bay wadaa gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan gordhaweeto idaacadii waynu ku soo qaadanay baxday wuxuu leeyahay Trump dagaal waa bilaabi karaa laakiin mana xakameyn karo dagaalkaasi mana soo gabagabeyn karo ama dhameyn karo maxaa socda maxay qobaradu leedahay arrimahani xasaasiyad xoog leh ayaa jirta Mareykanka aga juglayntiisa iyo handadaadiisa hadda waxaad moodaa in ay gaartay heer aanan marnaba laga baaqsan karin dadka la fagura arrimaha siyaasadda caalamku waxay leeyihiin wadan haddii mar uu hanjabaada heerkaasi gaaro meel uu uga noqdo ma joogto haddii kale waxa ay noqonaysaa in uu fashilinayo meeqaamka uu caalamka ku leeyahay iyo adduunka oo arrintan dhegta wada taagaya Jeffrey Sachs oo nin khabiir ah muddo dheer la shaqeynayay qaramada midoobay professor jaamacad wax ka dhiga bugaag badan qoray arrimaha dhaqaalaha mutakhassis ku ah oo arrimaha caalamka ama siyaasadda juqraafiyeedka caalamka ku takhasusay UN kana wax badan ama qaramada midoobay wax badan la taliyo ahaa ayaa waxa uu leeyahay qaanuunnimada in Mareykanku uu weerar qaado ayuu isweydiiyey wadan sida ku xusan xeerarka iyo axdiga qaramada midoobay wadan kale si furan uguma hanjabi karo dagaalna kuma qaadi karo Mareykanku wuxuu ku sameeyay Venezuela oo madaxweynaheeda uu qafaashay ama xoog ku qabsaday marka laga gudbo waxa uu leeyahay waxay u badan tahay Mareykanka inuu dagaal qaado hadda waxa weeye uu leeyahay goorma ay dagaal ka qaadayaan inay dagaal qaadayaan shaki kuma jira ayuu leeyahay waxaana muuqata haddii qaanuunka caalamka uu ku salaysanayn dagaalkaasi Mareykanku uu qaado ma noqon doonto wax sahlan dagaalkaasna sida Mareykanku wuxuu rabaa dagaal fudud inuu qaado oo sahlan oo saacado kooban oo khasaare xoog leh ku geysto iyo burbur xoog leh ku geysto laakiin macluumaadka la hayo dhan ayaa waxay sheegayaan Iiraan maaha meel si sahlan loo buuran karo waxaa inta dheer khabirada kale oo ayadana arrimaha ku nuuxnuuxsanaya oo ka mid yahay Scott Ritter ayaa waxa uu leeyahay shaki kuma jiro inuu dagaal dhacayo dagaal ka dhacaya qaabku u dhici doonto iyo waxa uu yahay way su'aasha la isweydiinayo waxaa sidoo kale asna ka hadlaya nin arrimaha militariga xoogaal u ah qaybna ka ahaa dagaalkii Yugoslavia lagu qaaday Colonel McGregor oo nin ka hadla arrimaha militariga ayaa waxa uu leeyahay calaamadaha muuqda oo dhan
iyo agabka military ee maraykanku isku doomeeyo uma muuqdaan kuwa nabad u adeegaya. haddii si kale loo dhigo maraykanku inuu dagaal qaadi doono shaki weyn kuma jiro. waa gartay, waa yahay. iiraan jawaabteeda maxay noqon kartaa baa laleeyahay, inkastoo barnaamijka falaqaynta caawa aad aan u faahfaahin doono arrinta, laakiin jawaabta caynkaasi iiraan ay bixin kartaa maxaa ugu weyn baa laleeyahay? dhowr nin ayaa isha lagu hayaa marka ay timaado jawaabta waddanka Iiraan. Iiraan marka ugu horeysa maraykanka wax allaale iyo wuxuu sheego kama hoos qaado. maraykanku waxay la tahay inuu xukuumadda Iiraan ridi karo, waddan shacabkiisu 90 milyan yahay, in uu xukuumadda ridi karo dowladda mas-uuliyiinteeda ugu sarsareeya, military ha noqoto, siyaasiyiin ha noqoto, xataa hogaamiyaha ruuxiga ayay waxay rabaan inay ka takhalusaan waddanka si ay food uga dhacdo, sida ay khabiiro badan ku waramayaan. laakiin xaqiiqada meesha taalla ayaa waxay tahay waddanka Iiraan waa waddan aad iyo aad u ballaaran. dagaal haddii uu dhaco oo tilaabo military uu maraykanku qaado, oo dhib hadduu dhaco waxaa la yidhaha dhabaqo meel beesha. dagaal hadduu dhaco oo maraykanku siduu wax u rabo ay u dhici waayaan, waxa ay Iiraan yeeli doonto maraykankana ma oga, annagana ma ogaan karno. laakiin khabirada maraykanka ah ee arrimahan la socda digniin ayay ka bixiyeen. dhinaca Iiraan khabiradeeda waxay leeyihiin Iiraan derbiga ayay soo taabatay, 47 sano ayay ciil cunaysay. markan mar ay ka awood badan tahay taariikhda waddanka Iiraan ma soo marin. dagaalkii 12 maalmood ahaa ee Juun 2025 lagu qaaday oo dhaawac weyn loo geystay oo mas-uuliyiintii sarsare ciidamada laga laayay, waa ka samata baxday. haddana waxaad moodaa in ay muujiso in maraykanka oo ka soo duulaya dhul aad u fog in uu barto, waa sida hadalka loo dhigay, darsi uun weligiis halmaami karaynin. Iiraan gacanta soo weerartay waddankeenna waan goynaynaa, waa ereyada laga soo xigtay hogaamiyaha ruuxiga. mas-uuliyiinta kale aadka u hadlaya waxaa ka mid ah banduulaha, waxaa ka mid ah taliyayaasha ciidamada, sidoo kale ninka hadalkiisa uu waranka oo kale reer galbeedka u gelayo waa afhayeenka baarlamaanka oo u sheegay dagaal waa la bilaabi karaa, laakiin dagaalka haddii la bilaabo waxay u baahan tahay maarayn iyo cidda soo afjari doonta. Iiraan si cad ayay u sheegtay dagaal diyaar uma aha, laakiin maraykanka inay yaraysto xeerarka caalamiga inay jebiso kuna fakato waa habeenkii xalay oo tegey, sida hadalka loo dhigay. waa gartay. nin qabiil ah oo reer Israa'iil ah ayaa isna hadlay oo wuxuu leeyahayba Iiraan awoodeedii ma isticmaalinba dagaalkii 12 maalmood socday ee bishii Juun. bal ninkaasi waxa uu sheegay Maxamed inoo faahfaahay. ninkan khabiirka ah oo cilmi baaraha ah oo Israa'iiliga ah oo ku takhasusay arrimaha Iiraan iyo Iiraan ururada kale ee gacansaarka la leh waxa la yiraahdaa Dani Sitrinovich, waxa uu sheegayaa wuxuu ka tirsan yahay maxadka amniga qaranka INSS magaciisa loo soo gaabiyo. wuxuuna digniin ka bixinayaa Iiraan ayaa laga yaabaa buu leeyahay awoodeeda inaan hadda ka hor